They are mentioned in the Holy Quran. La ilaha illa ar-Rahman. La ilaha illa ar-Rahman. الرحمن الرحيم المالك القدوس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درسيجنان أو أكيد سدحاد وحين كجهد للدونا رمضانك يا قيام الليلك. يعني بشهر رمضان يهبينك إلا استاجه وإلهي سبحانه وتعالى لبريه. قيام الليلك والسنة إلهي سبحانه وتعالى إنه جديي. قيام الليلك ودأب الصالحين دتك وناكسن لقن كودا ويه. وتجارة المؤمنين قفك مؤمن كأه جنعسجي سويه ولا تجارة سنة الله سبحانه وتعالى. وعمل الفائزين دتك الليباني وخير كبدن لقن كودا ويه. ففي الليل يخلو المؤمنون بربهم هبينكي أي مؤمنين تربي قد لك للنقانيان وإلهي سبحانه وتعالى أي أسو جيسانيان ما دام مالكي أردن أي أدون كودا مشغول كويهين وحيدتك أجهي سنيان إلى خالقهم وبارئهم الله أبو ري سبحانه وتعالى وإيقا أهيسيي الله هاس أي هبينكي أبن بحيان وحي أشيغانيان أحواشودا يدنها أيليهين ويسألونه من فضله dheeraadkiisa alla weydiisanayaan iyo galadaha alla subxaanahu wa ta'ala uu leeyahay sadeed naftoodu ama nafahoodu waxay hor istaagayaan bayna yaday khaaliqiha allaha abuuray bay hor istaagayaan waxay ku ictikaafayaan oo ay joogtaynayaan inay la munaajoodaan inay la koodaan oo la doodaan oo ay yani waxa weeye ilaahi subxaanahu wa ta'ala ay baryaan oo asaga arrimahiisa u gudbistaan oo ay wacawdaan ay alla subhanahu wa ta'ala u hor istaagayaan waxay ka faa'iideysanayaan nafaxaadka ilaahiga ah ee xilligaas jira sidoo kaleeto qurbaadkaas ilaahay loo dhawaanayo nuurkaas ayay ka bidhaansanayaan oo nuurkaas bay if ka doonanayaan sidaas oo kaleeto إلهي سبحانه وتعالى أي رجينيان إلهي بأتضرعيان سدلينيان إلهي سبحانه وتعالى عطايات كيسة إيه هبات كيسة الله أبحيه ووين أي إلهي كرجينيان مركا قيام الليل كقرآن كورمي إلهي سبحانه وتعالى وحلية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني جنبيه ذا إياه وحي كفوا جانيان ما لها الله الساحده sariirihii iyo joodariyadii iyo gogashii ayay ka dheeraanayaan mujaahid oo hadalkaas fasiraya iyo al-Hasan labaduba waxay yiraahdeen yaani qiyaamul layl baa loo jeedaa habeenkii bay toosayaan ilaahi subhanahu wa ta'ala bay u istaagayaan ilaahi subhanahu wa ta'ala ayay caabudayaan oo baryayaan ibn kathir fi tafsiri isaguna wuxuu leeyahay yaani bidalika arinka waxa loola jeedaa qiyaamul layl iyo watarku an-nawmi wal-idja'u 'ala al-furush al-wati'ah in laga tago hurdada iyo in la iska dhacdiido ama la laclacootiyo maxaan ku leeyahay faraashyada iyo joodariyada dushooda ayay ka tagayaan oo ay ka fogaanayaan oo habeenkii ay ilaahay u istaagayaan sidaas uu leeyahay sidaas oo kale Abdul Haq al-Ashbili rahimahullahu ta'ala isaguna wuxuu leeyahay ay tambu junubuhum 'an al-furush yani jirkooda ama jambiyadooda dhinacyadooda waxay ka dheeraanayaan yani waxa way firaashyada fala tastaqiru 'alayha kuma nagaanayaan wala tathbutu fiha ku yani waxa weeye kuma nagaanayaan li khawfi al-wa'idi iyagoo ka baqaya goodiga ilaahay subhanahu wa ta'ala alla uu dadka u goodiyay ورجاء الموعود يجو رجينية يعني وحوي
waxa Allah subhanahu wa ta'ala uu yaboohay oo ballanqaadka ilaahay iyagoo rajaynaya ayay sidaa yeelayaan dhan waxay ka baqayaan waciidka alle cadaabka ilaahay subhanahu ayuu leeyahay dhanka kale waxay rajaynayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala yaboohiisa iyo ballanqaadkiisa sidaa daraadeed qiyaamul laylku waa cibaado mudan inay dadka mu'miniinta ahi isbaraan inay naftooda layliyaan oo qaybsiiyaan hadda bisha ramadaanna kuma sii jirto ilaahay subhanahu wa ta'ala meel kale ayuu kaga waramay dadkii mu'miniinta wanaagsanaa markuu ka sheekeynayay kaanuu qaliilan min al-layli ma yahja'uun yani habeenkii waxay ahaayeen yaa qayb yaroo kamida ma yahja'uuna kuwa aan seexan waa haddii aan ka dhigno maadaas naafiye haddaan ka dhigno wey habeenkii in yaroo kamida baysan seexan jirinoo salaaday u istaagi jireen ama inaan nidhaahno kaanuu qaliilan min al-layli waxay ahaayeen habeenkii in yaroo kamida ما يهجعون وحي السحدان إن يرون بي بسيحن جرين انت كلا واسو جيري جرين هذه ماذا عن موصولة كدقنو وبالأسحار يعني حلية الضنبئ وصحور تحل جيدة أيهم يستغفرون أيهم إلهي دنبئ دافو يدي سنيان سبحانه وتعالى أيها وحي سمينيان مركا كبعد بيفري سنيان إلهي باستغفار يدنبئ دافو يدي سنيان قال الحسن رحمه الله تعالى حسن وحلية كابد الليلة habeenkii bay aad iyo aad u dadaaleen wamaddu salaata ila as-sahar salaadii bay dheereeyeen way jiideen ilaa xilligii suxuurta laga gaaro thumma jalasuu markaasay fariisteen fi ducaa'i baryay u fariisteen iyo wal istikaanati iyo wal istighfar ina ilaahay u noqdaan oo alla ay baryaan oo alla subhanahu wa ta'ala ay dambi dhaaf weydiistaan ay u fariisanayaan maxaa yeelay dunuubteenu aad iyo aad bay u badan tahay sidaa daraadeed waa inaynu cilaaqo joogto ah ama xiriir joogto ah waa inaynu la yeelanaa Allah subhanahu wa ta'ala waa inaynu habeenkii haba yaraatee waa inaynu in yar oo habeenkii samaysanaa haday salaada markii la gaaro bisha ramadaan oo ramadaan lagu jirana hada waxa weeye nabiga sallallahu alayhi wasallam dadaal gaara ayuu ku bixin jiray ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب يعني ذاتك هبينك قانتين تأه وإلهي أتاقن سبحانه وتعالى سجود إيا قيام إلهي هرتاقنهن لتاقن يا وهبينك قنوضا يقانتين تأه قفكاسو ولبا يحذر الآخرة آخرة كالدكتون وآخرة إنا إيماني سأق وآخرة أتوق هيا وآخرة أشقي سنيا ويرجو رحمة ربه يعني بين الخوف والرجاء بكونوا ليه إلهي نحرستي سنة والرجين إياه قل وحاتر هذا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كو وحق يكون وحقين ما يسكن مدبا يا وما يسكن مدبا استفهام إنكاري يوي إنما يتذكر أولو الألباب وحركة وحقوقاته وكوان صوبة ووانا قوقاته وكوانوبة ودتك أولو الألباب كأه وعقلك الصاحب كأه يعني وحوي هل يستوي من هذه صفته قف صفتي سوساستهي أو يعني وحوي هبين كيتاغن أو سجودسا أو إلهي بريه سبحانه وتعالى إيا من نام ليله وضيع نفسه يعني هبين كيس كسيحذي أو نفتي سضيعي لبدا اسقف ما يسكن مدبا وما يسكن مدماها يا قف أن أجين إلهي وعد كيسة سبحانه وتعالى إيه وعيد كيسة إيه قف ما يسكن مدبا ما يسكن مدما سيدا درادات يعني وحال الربا إلا النقضه ادتها بينكي وحكوله هبا يراته يا سيدي ابن أدهم إيو فضيل إيو يعني رق بدن أو محان كله السلف كي الله قشة جاي أو يعني وهاي ادتها بينكي آد أدداله موجودة مدي هذا كله يعني محان كله يا رجال الليل جدو يعني وحوي دتك هبينكي استاجو دتك هبينكيو ددالوي محيا لي يعني وحوي رب داع لا يرد يعني وحوي وحلغيابا هبينكاس ساعة الإجابة كدرته هدي إلهي كسولنسية سبحانه وتعالى الله كوكو بيغو وحلغيابا دعادي إنا لسوعلين سيدو كالي قيام الليل كا وحاكا ورمي سنة أيا كورنتي سنة أيا كورنتي نبينا صلى الله عليه وسلم وحليه عليكم بقيام الليل وحان إذن كوغهي هبينك إناد استاكتان oo aad maxaa weeye aad salaatu leylka tukataan fa innahu da'bu saalihiina qablakum
ودغنكي ددكي صالحين تأها أو إذن كهريي ددكي إذن كهريي أو صالحين تأها دغنكودا وحال لغو يقاني وحي أهايين كوها بينكي استاغا وقربة إلى الله تعالى ودواشو إلهي كو دويني سبحانه وتعالى ومكفرة للسيئات ذنوبتنا ويدافتايو ذنوبتها لغو ترترا ذنوبتها أيو الله كبابئية سبحانه وتعالى ومنهات عن الإثم يعني دنبغنا قفك ويكعلي سايو يعني دنبغي تاد كاغا نقونيسا waxa inta ku sii dheer jirkana waxayba ka qaadaa xanuunka caafimaad hadaad u baahan tahay halkaas laga helaa dambiga inaad ka joogsato hadaad rabtid halkaas laga helaa dunuubtii aad gashay in lagu dhaafo hadaad rabtid halkaas laga helaa dhawaansho ilaahay subhanahu wa ta'ala hadaad rabtid halkaas laga helaa hadaad rabtid inaad saalixiintii aad ku dayatid oo dariiqoodii martid dariiqoodu saasuu ahaa saasuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam حديثك إمام أحمد يترمذي باوريي شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى يسقنا وحيري وحديث صحيح هو سيدوك النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يسقوا كهل وحير نعم الرجل عبد الله يعني رجع أونا أكسن يا عبد الله بأونا أكسن عبد الله بن عمر وي رضي الله عنهما لو كان يصلي من الليل هدوها بينك واسهدوها بينك تكانيو لكان عبد الله ونجبه ونين أكسن وأن الله قد بدفن وأن آد قيمة بدن وسجارمة وجارتي وصلاة الليل كتكده حديث كاس متفق عليه بخاري مسلم باوريي سالم ابن عبد الله أو أسقنا يعني سالم بن عبد الله ابن عمر أيا وحليها أبيس كور رميا فكان وحوءها يعني وحوي عبد الله وحوءها بعد ذلك انت مركو النبي يريك بعدي لا ينام من الليل إلا قليلا habeenkii in yar mooyee inta kale ma uusan seexan jirin in yar un buu seexan jiray inta kalena wuxuu u taagnaan jiray salaatul layl marka Abdullah ibn Umar oo min ulama as-sahaba ahaa dadkii sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam aad u ilaalin jiray ayaa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay rag isaga u wanaagsan waa sagoortii uu salaatul layl ka tukado sida daraadeed ayaa wiilkiisu ka sheekeeyay wuxuu leeyahay markuu nabiga saa ka maqlayba وادم بيتو ما اوسن سيحن جر هبينك إن يرمويه يعني انت كلا صلاة الليل أي أتاقنان جريوه نبي صلى الله عليه وسلم وحليه هاي يعني قيام الليل كأي وحيابها اللي قارة أيو كشاكين اياه في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها جنة وحكوية لقول أقل با جنة كوية له أقل كاسو جوديهيسا لغا أركيو بنانكيسا لغا أركيو جوديهيسا يا وأقل شفافة يعني قروح ديسا وديابيسا إيه وباطنها من ظاهرها جوديهينا وحا لغا أركيا يا بنانكي أقل شفافة أو يعني وحوي آد قروح بدن أو ما شاء الله أيا جنة كياله ساسوير النبي صلى الله عليه وسلم فقيل مركاسا وحلقوا يري لمن يا رسول الله رسولك إلهيو يا إسكال قلقاس أقلك يا له يا دقية يا لو دياريي قال وحير النبي صلى الله عليه وسلم لمن أطاب الكلام قفك هذا الكوناجية وهذا الوناكسن لقبرته وأطعم الطعام عنتذنا ذاتك قودية وأندرقي سدبك لقد الجن ونن ديق بدن أما قبر ديق بدنه وعنتذب بحية قفك السداسة أيها وحويه إسكالوي أو وبات قائما هبين كينا هبين سده أو بريا إسقو تاغن والناس نيام يعني قل كامركا وحا إسكاله أو دقية لمن أطاب الكلام قفك هذا الكوناجية قفك مسلم كعبركا وحال ربا إنه هذا الكيس وناجيو ولبا بشهر رمضان كما سيجرته وحال ربا بشهر رمضان إن قفك هذا الكيس لا إرادة أسي إلاليه أو أطعم الطعام عنتذب بحية cuntada waxa la rabaa mar walba inuu qofku dadka qoodiyo oo masaakiinta uu waxtaro bisha ramadaan hadda kuma sii jirto yani waxa weeye iftaaru saa'imka iyo qofka sooman in la afuriyo ajirka ku soo arooray meel kale aynu kaga hadli doonaa hadii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka raali noqdo lidalika dadka in bisha la qoodiyo ayaa la rabaa oo wabaata qaa'iman yani habeenkiina habeensada oo bariya isagoo taagan wanaasu niyaam dadkuna ay hurdaan meesha dadku ka hurdaan isagu ilaahay buu baryayaa ilaahay buu u taagan yahay subhanahu wa ta'ala sidaas oo kale wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam atani jibril ayaa ii yimid
فقال وحوير يا محمد عيش ما شئت انت دونتد نولو انت دونتد نولو فإنك ميت ودمانيسا نولشادو انتي ربطو هجارتو انتي عمر إلهي كسينا يهكسيو كل جيري باك الدنبيسا وأحبب من شئت عدة جونتو جعلو فإنك مفارقه وح الله واحد عشاء واد كتجيسا كل واد سجوتين دونتا واد سواي دونتان واعمل ما شئت وحد دونتا عمل فل فإنك مجزي به وحد سمي سوى لقاء المرين دونا واعلم وحد أجاتا أن شرف المؤمن قفك مؤمن كأشرف كيسو وحويه قيامه بالليل هبينك استاجيو وإلهي الصلاة كهر استاجيو أيها شرف كيسو كجرا وعزه قبل نمدي سنة وحي كجرتا استغناؤه عن الناس إنه ضدك ككافتومه وددك وصنبريين وقف شحاضة وددك انت دبتاغن ولو حلا يسيو يقددها لا يقبحيو يشاه يشب إيو يعني هو إنه سنقن قبل نمدي قفك وحي كجرتا إنه ضدك كدافتومه إنه إلهي سبحانه وتعالى حقيسة وأجهيسته محايا لي وحلا يري بكتا بدن إيا باهي بدن با والله اسكن عاوي يعني بكتا بدن إيا باهي بدن bahdaa baa kugu nacda yani dadka ku xiga ayaa kugu nacaya sida daraadeed yani qofka gobannimadiisu waxay ku jirtaa inuu dadka ka deeqtoomo qofka kaliyana maaha xataa dawladnimada markay umadu dawlad tahay oo umadu ummad tahay oo bulsho meel degan ay tahay waa inay ka deeqtoontaa dadka kaleeto maxaa yeelay ummad aan isku filaansho gaarin oo aan bulshadeeda ama dawlad aan dadkeeda isku filaansho gaarsiini yani waxay noqonaysaa dawlad guna oo wax alla wixii la rabo loo yeeriyo maxaa yeelay yani qofku quudkiisii ama wuxuu afka gelin lahaa ma hayo ya mawjada waatuulaha afyare dibadaad ka baridaan waxa daanka gelisaan yani mar hadaad cuntadii baryayso hadee go'aankaagu xor ma noqonayo sida daraadeed yani qofka iyo bulsho markii la yahay ama dawlad waa isla mid way qofkuna waa inuu dadka ka deeqtoomaa dawladuna waa inay dawladaha kale ka deeqtoontaa oo ay ku dadaashaa inay isku filaansho gaarto saasaa loo baahan yahay xadiidka xaakim ayaa wariyey bayhaqina waa wariyey waxasanahu almundiriyu waalalbaniyu imaamu almundiri yani maxaan ku leeyahay iyo ninka la yidhaha albani labaduba waxay dhaheen waa xadiis xasana oo wanaagsan wey sidaa daraaddeed يعني وحوي نبي محمد بالله صلى الله عليه وسلم عش ما شئت فإنك ميت يا يعني وحوي إنك غير كيلو حيري وأديك سوق قيسو إن نبي محمد صلى الله عليه وسلم بسال ليه يعني أنت دون تنولو وادي من دونته وحد دون تجعلو فإنك مفارقه واتكتجي دونته واعمل ما شئت فإنك مجزي به وحاربت السماء الدون كهذا قفكو وحر سور أبو يليا إلهي سبحانه وتعالى إرادة أيوسيي يا فإما شاكرا وإما كفورا يا يعني وحاول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي يعني وحاول رشد يبادي واكل عدادين مركب حسبي مجران إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا يعني طريقي بقى لو تصي أديك كلا دورانية وناجا إيو حمانت لكن وحول البصمية يو والغاء بالمرين دونا واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل مؤمن كشرف كيسو وإنه هبينك استاغو وعزه قبن مديسنا واستغناؤه عن الناس ذاتك إنه كديقتهم لذلك وحال ربا قفكو إنه النقضه قف الله سبحانه وتعالى كحرا وعلاقا له وغيري دا أطوغ هيا إنه النقضه أيا لدونيا سيدو كلا وحير النبي صلى الله عليه وسلم من قام ب10 آيات قفكي 10 آيادود كو استاغ هبينك يعني انتو استاغو 10 آيادود كنتو كذا لم يكتب من الغافلين قفكا لغما قورو كو غافلين تأموغياشا دوهانياشا لغما دارو يعني قف موغا ما اها دوهانا ما اها دوغلاوة ما اها يعني واقف براروكسن او اوغ ان حسابي كدن بيسو او اوغ ان آخره جرتو او اوغ ان جنة يعذاب او جرو واكا marka qofka 10 aayadood akhriya habeenki يعني مثلا سورة الفاتحة أخرجها وتضبع آيات قل هو الله تقدرتي وسدح آيات أما 4 آيات يعني كوي 8 آيات أما وحابد يا شيء يعني وحوي يسدح ركعه
oo witraa tukatay mid walba waxaad ku tukatay faatixada iyo qul huwa alle faatixada qul a'uudu birabbil falaq faatixada qul a'uudu birabbin naas ya dadka saas yeela yani laguma qoro min alghafiliin moogayaasha dhoohanayaasha dhuglaawayaasha laguma daro waman qaama bi100 aayatin qofkii 100 aayadood habeenkii ku tukadana kutiba min alqaanitiina aman huwa qaanitun samaynaa soo marin dadka qaanitiinta ah oo ilaahay u qunuuda oo alla u istaaga oo istaaga dheereeya lagu daraa maxay la 100 aayadood buu ku tukaday 100 aayadood ayuu ku tukaday waman qaama bi1000 aayatin kun aayadood qofkii ku tukadana ya yani muqantariinta lagu daraa yani muqantariintu waa dadka qintaar min al-ajr la siinayo qintaar yani waxa weeye buurta uxud oo kale ajr weyn way yani qof la siinayo يعني واحد dadka la siinayo ayaa lagu darayaa way marka yani hadii aad kun aayadood ku tukanto yani dadka qintaar min al-ajr la siinayo ayaad ka mid noqonaysaa hadii aad 100 aayadood ku tukatana qaanitiinta aad galaysaa amman huwa qaanitun ana al-layli saajidan wataynu soo marnay dadkaasaad galaysaa ya hadaad 10 aayadood ku tukatana gaafiliinta kuwa moogayaashan waxba kala ogeyn oo iska nool ya ayaa waxa weeye ayaa laga saarayaa kuwa ilaahay xusaad galaysaa way marka hadaad kun samayn karto ahleen wa sahleen hadaad 100 ka dhiga karto sidoo kale hadii kale 10 aayadood ha ka yaraysan 10 aayadood ha ka yaraysan xadiiska abi daawud ayaa wariyay sheekh Nasruddin Albani wuxuu yiri waa saxiix sida daraadid qofka waxa la rabaa inuu salaatul leylka oo cilaaqo joogta alla yeesho sidoo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa waxa looga sheekeeyay nin habeenkii iska seexday ila uu ka waabariistay waxa la yiri hebel ninka la yiraahdo ama nin baadira nabi allow intuu iska seexdo salaada fajr uu kacaya ka hor aan kacaynin nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam dhaaka rajulun kaas waa qof weeye oo baala shaytaanu fi udunayhi shaydaan labada dhagood kaga kaadshay shaydaan ayaa labada dhagood kaga kaadshay isaga wuxuu ku oranayaa iska seexo habeen dheer baa ku dhiman iska seexo qof wanaagsan baa tahay iska saas yani shaydaan baa labada dhagood kaga kaadshay buu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiidkaasuna waa muttafaqun alayhi bukhari iyo muslim baa wariyay waa xadiid biyo kama dhibcaana marka qof intuu iska seexday waagu ugu bariyay isagoo aan kicin ya hadii aadan bakici karin oo ay dib kugu tahay hadaa seexatid inaad kacdid inta aadan seexan ya markaad hurdada isu diyaarisid soo weysayso witrka tuko seexa markaas ya sidaas marka waxa weeye waxaad ku noqonaysaa dadka habeenkii istaagay marka dhaaka rajulun kaas waa qof weeye oo baala shaytaanu fi udunayhi shaydaan labada dhagood kaga kaadshay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu kaloo leeyahay afdalu salaati salaad waxa u fadli badan oo u toolmoon oo u wanaagsan bacda al-fariidati salaada faradka marka laga soo tago salaatul layl salaada habeenkii la tukado shanta salaadood oo faradka ah fajrka dhuhurka casarka maghribka cishaha shanta marka laga soo tago salaada waxa u wanaag badan salaada habeenkii way salaada habeenkii ayaa u wanaag badan oo yani waa salaada يعني waxa weeye ugu mudan salaadaha faradka marka laga soo tago xadiiskaasna imaam muslim ayaa warinaya waa xadiis saxiix qiyam an-nabi sallallahu alayhi wasallam bal halkan waxaan fiirinaynaa wax yar nabigu sallallahu alayhi wasallam seebu salaatul leylka u tukan jiray ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu nabigiisa amray nabiga waa la amray waajib ay ku ahayd qiyamul leylka ya ayyuhal muzammil midka isdadayo qum al-layla illa qalilan habeenki istaag in yar mooye nisfahu kala barki istaag aw inqus minhu qalilan am xoga ka sii yare yani waxa weeye ama xoga ka sii yare aw zid alayhi ama kaba kordhi warattilil qur'ana tartila qur'aankana tartiili si kala gogo'an oo tajwiid ku dheehan oo ahkaamtii la ilaalinayo qur'aanka يعني أخرس كيس أحكام التلاوة ولا أخرينيو يعني قرآن كلا دق ساسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا قوم الليل إلا قليل النبي قال أمره صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى وحليه ومن الليل هبينك فتهجد به نافلة لك هبينك وحوى أدوك تهجد سماء وإلهي استاك يا يعني وحوى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وحرب حقيقة كيهي إنه مقامك محمود كأها وربك وقصو صاره
يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقيامها dadkoo dhan u shafeeci doono weeye waanagana ugu ducayna marka aynu aadaanka maqallo oo iimaanku aadaan muadinku wuxuu oranayo inuu ka daba niraano ducooyinka aan ku ducaysano ayay marka kamid tahay sidoo kale Aisha radiyallahu anha waxa laga wari qaalat waxay tiri كان النبي وحوها صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل هبينكي أيو استاجد جري وحكمده يعني حتى تتفطر قدمه إلى أي قمدها النبي دلدلاعان صلى الله عليه وسلم نبي إلى قمدوه دلدلاعان أيو استاجد لركيس دراديس أيو استاجد جري مركز عائشة وحيثري فقلت له وحنكئري لما تصنع هذا يا رسول الله رسولك إلى هيو محات دا أصمينيسا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر iyadoo dambigaagi hore iyo kaagi dambaba la dhaafay ya maxaa dhibka ku geystay markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam afala akunu abdan shakura adoon shukriya oo ilaahay subhanahu wa ta'ala islaamnimada uga shukriya oo nabinimada uga shukriya oo caafimaadka uga shukriya oo xigmada uga shukriya oo fadliga uu iigale oo alla tarin karin wa inta uddu ni'matallahi la tuhsuha ni'amka alla koobi karin miyaanan ahaanayn adoon ka shukriya saasuu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam حديثك متفق عليه وبيه كما دبعان بخاري ومسلم باوريي سيدا درادات يعني وحوي النبي صلى الله عليه وسلم dhaqankiisu saas u aha inuu habeenkii taagnaada in badan ila gomaduhu ay dildilacaan ila Aisha ay u turtay oo nabiga ka naxday sallallahu alayhi wasallam oo ay tiri ilaahay dambigaaga hore kaagi dambaba uu dhaafay ya marka maxaad saa u yeelaysaa markaas uu yiri miyaana noqonayn adoon shukriya yani marka waxay xadiidkanu daliil u yahay oo ina tusinaya in shukrigu وإلهي لو شكريا لا يكون باللسان فحسب قفك إنه عربك الحمد لله كيرا هذا كلية أما شكرا لله كما فيلنا وإنما يكون بالقلب واللسان والجوارح وأنا قلبك يعربك يحبنه وإن إسراعانه إسلف القلم وي نبي صلى الله عليه وسلم مركب بحق العبودية لله إلهي أدون نمدي نبت أهيد أيو أدون النقضي النبي صلى الله عليه وسلم على وجهها الأكمل وجهي ugu toolmoona oo ugu wanaagsanaaba ugu noqday suuradeeda ugu atam sanayd oo ugu dhameystirnayd oo ugu abiyoonayd ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ilaahay adoonnimo u muujiyay mawjeeda maxay yeelay aqeedada islaamku nabigu buu faafiyay muslimiinta ayuu wax baray الجهاد في سبيل الله أيو قلي وحو استاق حقوق أهل كيس يدريديسة سيدا درادد أيا ابن رواحة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكو أماني وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع نبي أمانة صلى الله عليه وسلم قبيقاس نبي وحن نقجر له كتابك إلهي سبحانه وتعالى أخرنا موجودة نبي بأن نقجره يعني أنه إن لا هنون كنا تصي أو قلوب تيدو أي يقين السي أو حقيق ستي وحقو شيء إن دعيان والنبي أو جنبي سوء فراشك كفجانا يهبينك يا إذا استثقلت بالمشركين المضاجع هلك يعني وحوي ماله للساحني سريره أي مشركين تيجالدوا أي عسليين سريرها سيهردان نبي جوا تاجي صلى الله عليه وسلم سيدا درادد نبي صلى الله عليه وسلم قيام كيسو قيام آد مدنان قارئ له قيام آد لو جد علي أيها قيام كالنبي صلى الله عليه وسلم وآد نير يعني وين نقصي والرمي دونا صلى الله عليه وسلم سيدا ونبي صلى الله عليه وسلم ويستاج جري يعني ولي سيدا ورمضانك وأسيد دال جري النبي صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى وحن ويدي سرينا إنه إن السلنسيو إنه نقنه من القانتين يعني وحودتك قانتين لو استاجه وإلهي سبحانه وتعالى يعني محن كليه هي الضوء ربع النقطة وإلهي سبحانه وتعالى أفضل قاسيه والله سبحانه وتعالى أعلم. لا إله إلا هو الرحمن لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس